بسم الله الرحمن الرحيم shirkeena jaraa'id maanta wuxuu ku saabsan yahay ciidankii loo qaaday Eritrea iyo xaaladda ka soo korortay sida la socotaan waxaa soo baxay warbixin ka soo baxday qaramada midoobay gaar ahaan guddi loo xil saaray baaritaanka tacadiyada xuquuqul insaanka ee ka dhacay gobolka Tigreega ee lagu dirsan yahay reportkaas waxaa ku qornaa in ay arkeen guddiga ciidamo Soomaaliyeed oo ah kuwii loo qaaday tababarka Eritrea oo ka soo gudbay xadka oo u soo dhawaaday meesha lagu dirsan yahay Aksum deegaanka la yiraahdo agteeda la socotaan hore waxaa u jiray kumanaan dhalinyaro Soomaaliyeed ah oo dawladdii uu hogaaminayay madaxweynaha xilligiisa dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay u qaadeen dalka Eritrea oo ilaa iyo hadda la la'aa meel ay jaani cirib ay dhigeen halka ay ku sugan yihiin waalidiintoodana maalin walba ay hortaagan yihiin warbaahinta ayna doonayaan cadaalad u raadinayaan wiilashoodii iyo gabdhahoodii loo qaaday wadanka Eritrea ogtiin ciidankaas waxaa lagu qaaday si sharci darro ah oo aan waafaqsanayn nidaamka qorista ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ama ciidanka qalabka sida guud ahaan markaan baaritaan sameynay waxaan weynay ciidamada qalabka sida booliska militariga iyo nabad sugidda meel ay ka tirsan yihiin iyo hanaan lagu qoray oo lagu qaaday ma jirin dawladduna way ka aamusneed intaas ay waalidiinta dalbanayeen inay ka jawaabaan way diideen oo waa aragteen oo mar kasta oo la weydiiyay arrintaas way ka maagaan oo waa ka sagsaagaan maanta waxaa soo baxay oo cadaatay in ciidankaas ay qayb ka ahaayeen dagaalkii ka dhacay gobolka Tigreega ah haddaba way dhamaatay xilligii la isku qarinayay daaha gadaashiisa ama laga dhuumanayay mas'uuliyadda way dhamaatay waxaan dalbanaynaa in waalidiinta jawaab la siiyo waxaan dalbanaynaa in wiilashii Soomaaliyeed iyo gabdhihii loo qaaday dalka Eritrea ay dawladda ka jawaabto waan ogeyn horena waa u sheegnay waa ku celcelinay laakiin haddeertan waxaa soo baxday warbixin caalami ah oo qaramadii muddo ka soo baxday oo arrintii ka marqaati kacaysa waxaan u baaqayaa madaxweynaha xilkiisa dhamaaday inuu banaanka soo istaago mas'uuliyadda arrintaas oo qaado waxaan u sheegayaa shacabka Soomaaliyeed inuu rabo inuu isku qariyo doorashada uu raadinayana ku qariyo dambiyada oo dalkan ka galay oo ay kamid tahay in dhalinyaro Soomaaliyeed oo dagaal ugu diray deegaano kale oo ka baxsan Soomaaliya arrintaasna arrin ka baxsanayo la xisaabtankeedii mas'uuliyaddeed inaysan ahayn waxaan rabaa in la hadlo ra'iisul wasaaraha Roble oo hadda mas'uulka amniga dalka laguna wareejiyay meel fagaara iyo madal qaran intaba waxaan rabnaa inuu waalidiinta la kulmo waxaan rabnaa inuu jawaab ka bixiyo ciidankaas Soomaaliyeed ee dhalinyarada ee la qaaday meesha ay jiraan waxaan rabnaa inuu arrintaas ka gabanin oo banaanka u soo istaago oo cadeeyo mowqifkiisa arrintaas ku aadan maadaama hadda asaga uu ka yahay dalka ra'iisul wasaare xukuumaddiisana ay tahay xukuumadda xilgaarsiinta loo igmaday inuu arrintaas soo istaago oo ka hadlo oo mowqifkiisa ku aadan u cadeeyo la gurmado waalidiintaas la raadiyo ubadkoodii iyo ilmahoodii meeshaas loo qaaday inuu la raadiyo waxaan kaloo ugu baaqayaa madasha wadatashiga qaran xubnaha dadka ka ah dowlad goboleedyada ay ku jiraan sidaas oo kale inay mas'uuliyadooda qaataan waxaa la yiraahday waxaa jiray hadal taariikhi oo laga wariyay hogaamiyihii u dhaqaaqayay xuquuqda dadka madow ee wadanka Mareykanka Martin Luther King oo yiri injustice everywhere is a threat to justice everywhere cadaalad darrada meel ka dhacda waxay halis ku tahay cadaalad meel ka jirto nabadgelyo darrada meel ka dhacda waxay halis ku tahay nabad meel ka jirto saas daraadeed waxaan ka soo qaadaynaa waalidiintaas ilmahooda ay ka maqan yihiin anaga naga maqan yihiin oo waxa maqan ubadkeena ay yihiin oo ay deegaanadeena ka maqan waa huba shanta dowlad goboleedba dhalinyaro ayaa laga qaaday deegaanadooda ayaga aysan ogeyn markii la qoray saas daraadeed arrintan waa arrin national issue ah waa arrin qaran saas daraadeed inay madasha wadatashiga qaran arrintan si dhab ah oo degdeg ah oo serious ay uga hadasho waayo maadaama ay arrintii ay ku soo baxday warbixinada caalamiga oo mas'uuliyaddaas inay qaataan ayagana ugu baaqaya sidoo kale baarlamaanka labadiisa aqal ee ku meel gaarka xilligooda oo yahay ayagana sidoo kale qaasatan gudiyada amniga iyo difaaca waa inay arrintan mas'uuliyad iska saaraan ay u istaagaan oo ay waalidiinta la saftaan oo arrintii maadaama ay soo cadaanayso maalin ka dambayso ay gudiyadaas baaritaan ku dhaqaaqaan oo ay la xisaabtan arrintaas ku aadan inta yar oo u hartay dadka Soomaaliyeed kulay xildhibaano waa labada aqal doorashay rabaane inay intaas ummadda Soomaaliyeed ay ku sheegtaan oo ay xisaabtaas ay banaanka soo dhigaan ayagana ugu baaqaynaa runtii waa arrin aad iyo aad looga naxo arrintan in muddahan daba taagnayn
dadku way nala yaabanayeen markaan lahayn ciidamadu meelo kale ka dagaalameen laakiin haddeertan waa arrin caalami ah oo bannaanka soo baxday annagana dee dadka Soomaaliyeed xaqooda iyo inay cadaalad helaan u taagnayn ayadaan dhibaato badan u marnay jidkaasana ku taagannahay sidaas daraaddeed waa dhammaatay xilligii la isku qarinayay boorka xilligii laga dhuumanayay mas'uuliyadda farmaajo waxaa laga rabaa maanta inuu bannaanka soo istaago adduunkiyaa ku caddeeyey ciidankii halkan uu ka qaaday inay meel kale ka dagaalamayaan saas daraaddeed inuu mas'uuliyadda qaataan rabnaa oo bannaanka soo istaago oo wax badan oo ka dhuunta dadka Soomaaliyeed oo se ka dhuumanin waalidiintana oo se ka dhuumanin waxaan u sheegaynaa waalidiinta aan la safannahay oo wixii aan tabar leenahayna aan la garab taagannahay ayagana inaysan ka quusanin inay xaqooda raadsadaan oo ilaa xaqooda ay ka helayaan oo ilmahoodii loo soo celinayo oo guryahooda loogu soo celinayo naf iyo nolol maxay tahayba kii dhintayna xataa loo sheego xaqi u leeyahay waalidiintaas magdhowna laga siiyo sababta uu dhintayna loo sheego kii noolna in loo keeno loo soo celiyo ayaa waalidiinta kula safannahay waxaan ugu sheegaynaa xaqooda in la raadinayno waa mahadsantihiin intaas ayuu ku saabsanaa maanta shirkeena jiraad wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu